السلام عليكم magacaygu waa Salaad Muuse Maxamuud kusoo dhaw janaalka Salaad Somali Technology topigeena wuxuu ku saabsan yahay decision making in C language decision making or control statement or conditional statement in C language are the following statement: if statement, switch statement, conditional operator statement, go to statement. Decision making in C language ama conditional statement ama control statement waxa la isku dhahaa if statement, switch statement, conditional statement, conditional operator statement, go to statement. afartan ka kooban yihiin. Number one, if statement may be implemented in different forms. There are four types of conditional statement. If statement waa noocyo badan tahay afartan nooc ayay ka kooban tahay. Simple if statement, if else statement, nested if else statement, else if later. Simple if statement ama number one ayaa soo qaadanaynaa. Topigan wuxuu ku saabsan yahay simple if statement. Number one, simple if statement syntaxkeeda qaabkan waa if condition statement block waa civil block. haddii kale qaabkan waa if condition statement block 1 up to statement block n means 1 2 ilaa intaa jeceshahay block n waana true block statement. programkeena codekeena ayaanu gudagelaynaa. always waxaan isticmaalaynaa code block isiga ugu fudud intii la isticmaalo. calaamadda balaaska kaliya ku siinaya main.c aad kale double kaliya ku siinaya then waxaan u baahnay waxa leenahay codekeena programkeena simple wuxuu ku saabsan yahay programkeena caaw simple if statement online for example ahaan int n semicolon joint f enter ability leedahay combine wax qaladan ma lahan. then inaan leenahay enter any number, for example 8 positive. waxaan qaadanaynaa enter any number 20 positive. if statement qaabkaas waa waxaan dhahnay int n declaration ahaan u qaadanay printf enter any number waxa gelistaa numberka jeceshahay scanf input ahaan u gelinaynaa percentage d and if n ay ka weyn tahay calaamadda greater than ka qaadanay. if haddii n ay ka weyn tahay zero printf positive. balse waxa ogsoonataa if statement block statement hadduu yacni qalad noqdo si kastaba statement x statement ahaa jiro oo ay daabacayso. for example haddii aan dhaho waxaan leenahay zero waxba maysan noo keenin waayo meeshaan maxaa yaal if n haddii ay ka weyn tahay zero 1 oo kale wixii ka bilowdo waxay noo daabacay positive. for example tusaale 1 aan leenahay positive. if n haddii ka weyn tahay zero waa positive way noo daabacee
balse haddii yacni wixii oo sir haddii ka hooseyso ama sir ay tahay ma ay daabacayso because statementiga qalad uu noqonaa laakiin waxa qalad kuma weydiinayo statementiga statement ahaajo for example waxaan leenahay sir aan leenahay inta wax dhan ku daabacayso balse wax qalad ma sheegayso waxna natiijahna ma siinayso kaliya meel bannaan inoo keenay marka statement if statement waa qaabkaas example kala qaadanayna ku saabsan if statement for example waxaan leenahay أنا بس كقاعدني أساسي printf علينا if n ay ka weyn tahay waxaan dhahnay if n value oo n qiimaheena n haddii uu ka weyn yahay 10 then waxaan leenahay printf qiimaheena n waxay ka weyn tahay 10 printf try again lena compile meeshaan qalada ka jiro dhahay sorry semicolon meeshaan ka maqan waxa qalada hadda ma lahan waxaan leenahay build inta waxaan leenahay tusaale 20 aan leenahay 20 and we went yes so 20 number can wuxuu ka weyn yahay 10 agana number is greater than 10 new line si page ka dambe new line ugu bilowdo waxaan leenahay for example 30 number is greater than 10 next wuxuu dhahay try again labadaba uu noo daabaca two statement uu noo daabaca because two statement labadaba way saxan yihiin for example waxaan leenahay 5 aan leenahay 5 10 way ka hooseysaa maano wuxuu dhahay try again because statementiga ma ku daabacaya because 5 ma ka weyno oo 10 next waxaan leenahay for example 9 aan leenahay 9 way ka hooseysaa way ka tahay 10 wuxuu dhahaa try again because statementiga ma ku daabacaya statement x statementigan statement x alla statementigaas uu ku daabacaya laakiin statementigan ma daabacaya for example waxaan leenahay 60 way ka weyn tahay 10 years number is greater than 10 noo noqone cashirkeen wax ku saabsanaay simple if statement syntaxkeedu waa qaabkan next waxaan qaadanaynaa nested if else statement si aad ula socoto casharada mar walba subscribe